Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga qaaliga ah meel kasta adduunka aad ka joogtiin kusoo dhawaada walaashiin macaan insha allah maanta caawa videogan wuxuu ka hadli doonaa barnaamijyadii hore aan ugu soo hadli jirnay kuwaasoo ku saabsanaa uurka haweenka iyo walaaca iyo waxyaabaha lamid ah insha allah videogan caawa waxaan rabaa inaan ugu faa'iideeyo gabdho badan oo xaamilo ah oo xilligii foosha soo gaaray oo haddana aan ogeyn inay fooshii hayso iyo inay fooshii beenta ay tahay marka caawa waxaan rabaa in haddaan dhaho labada dhinacan ka hadlaya way ugu dheeraana videoga marka insha allah waxaan rabaa inaan ka hadlo foosha beenta ah oo jirka waxay dhahaan badanaa jirka qofka siraayo inay fool hayso camal ay dareemaysaa gabadha laakiin fooshii runta ahayd ma aha soomaalida foolodiin ma la dhahaa ma aqaan walaa iisoo comment igu soo qoray insha allah waxay idinkana u taqaanaan ana foosha beentan u aqaana kuley marka foosha way kala duwan tahay ani fooshaan raba caawo inaan raba aan ka hadlo waxay tahay foosha xilliga u dambeysay ee gabadha ay qabato horta fooshii runta hadday imaato taas laba calan isweydiinayso fooshii runta ah xanuun zaa'id ay wadataa siyaado laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa gabadha inay xanuun zaa'id ay dareento laakiin aysan fooshii shaqadii foosha aysan bilow ahayn oo gabadhii fooshiiba aysan bilaabin laakiin xanuun zaa'id ah oo gabadha haayo ilaahay waxa ugu baryaa intii fool haysto iyo intii xaamilo ahba inuu ilaahay kala keeno ayagii ilmahooda maxay ahaydey caafimaad qaba marka insha allah foosha beenta ah gabdha waxaa lagu gartaa foosha beenta ah waxaa lagu gartaa waxa waaye horta biyana ma dilaacaan dhiigna ma imaada maxay ahaydey hadee biyihii dilaacaan bis mar fool waaye gabadha fool waaye dhiig hadduu imaadana mararka qaar waa ina isbitaalka ciyow tagtaayo markii foosha soo dhowdaha dhiiga imaado mararka qaar laakiin waxaa dhici karta mar ayna fool ahayn dhiig imaado oo gabadhaas oo cilad xagga ibida amba minka ama meelahaas ay jirtaa laga yaabaa mararka qaarna dhiigaas imaado ciladoo keeni karaa marka isbitaalka hore ugu sii gaar insha allah marka foosha beenta waxaa lagu gartaa xanuunkiisa isku dheelitirnaa hadda tusaale ahaan anaga Sweden meeshaan qaatiirta Sweden waxay dhahaan foosha runta ee gabadha markay qabato saacadaha imaanaya waa saacado isu dheelitiran oo waxaa la rabaa lagu foosha runta markay imaato 10 daqiiqo waa inay 3 mar oo xanuun ku qabtaa fahmuusa ee isku dhadhawadaha ee foosha 10 daqiiqo 3 jeer ay ku qabataa ma xanuuna imaanayo 3 daqiiqo ku hayna wuu ku deynaa wax yar nasaysa sakiin camal nasaysa ama 1 daqiiqo nasaysa xanuunkii kala imaanayo haddana kii kala imaanayo marka 3 daqiiqo mar 3 kala mar marka 9 daqiiqo isku geen 10 daqiiqo 3 xanuun ku qabanayo taas hadduu ku qabto waa fooshii runta waa taas laakiin hadda fooshii beenta aan ka hadlayna waxa waaye xanuunkii oo beenta ahay markuu gabadha haayo waxaa laga yaabaa 10 daqiiqo mar inuu qabto 20 daqiiqo mar saacad iska nasataa laga yaabaa saacadii mar xanuunka soo bilaawdo waxaa laga yaabaa inuu maalmo nasato oo hadda tusaale ahaan alxamdulilah wiilkayga curadka markaan fuulanayay 2 isbuuc foosha beenta haystay habeen kasta waxaa hadda bixi hadda imaad hadda foosh imaad waxa 2 isbuuc aan ku jiro xanuunkaas marka xanuunkaas waxaa lagu yaqaanaa wuu baxaa dad baqaar waaye dad waxaa laga yaabaa 2 maalin ka bacdi inuu imaado dad maalin ka bacdi inuu imaado dad 3 saac ka bacdi inuu imaado dad 2 saac ka bacdi inuu imaado saacad ka bacdi inuu imaado 20 daqiiqo mar inuu imaado marka ilaahay bid'aadanka ma simin laakiin waxaa lagu gartaa xanuunka zaid iskuma dhadhawo isku midna ma ahan xilligu imaanayo marka taas waa lagu gartaa oo taas calaamad waa iidan aad u fiican oo ina maxay yeelay ka warhaysin isku day waayo waxaa dhici karta gabar magaalada isbitaalka ka dheer inay xanuun dareento xanuunkaasoo 3 saacada qabato 10 daqiiqo oo qabanaysa 10 daqiiqo waa fiirina inta jeer lagu qabto lagu daalo waa ina qasab waa ina tirisaa haddii kale gabadha isdees xanuun foosh diinka ama foosh beenta ee doodo isdhahay laga yaabaa in gabadhiyo ilaahay saas ku kala keeno cunugii soo baxan fahmuusa foosh runta qabta isbitaalkina way isdhehaysaa aadin isdeeso uma dhawo marka taas halis waxaa imaan karta cunugii hooyada nafteeda halis geli karta marka waa inaad barataa baay sidaa saacadda u sameyn karto hadda waddamankan horumarsadaa joogta waxaa jiro barnaamijyada soo degsanaya jiro app lasoo degsanayo telefoonka lagu soo degsanayo kulle waddankaa joogta ku qoraysa hadda Sweden oo kale waxaa ku qoraysaa vaarkar markaa ku qorto ama forloosna ama wax le ku qoraysaa ad wax ku saabsan waxaasaa ku qoraysaa aapka wuu kuu soo baxayaa marka waa ku dhufsanaysaa pause uu leeyahay marka xanuunka qabto
waa taabanaysaa play adhaysaa wuu soconaa saddex markuu ku haayo sikina markuu ku haayo wuu ku daynaa haddana play adhay haddana wuu ku daynaa saasaa ku ogaan kartaa marka taas waaye xanuunka warka haaya xanuunka hadduu yahay mid saacad kadib imaanayo kaas waa kii beenta ah waa iska naso gurigaaga iska joog cunto isku cun haddaa rabtid socod dheer iska aado qof wado oo socod dheer aad kadibna naso nasiinada aad u fiican tahay xilligaas dambe waa inaa nasataa howl dheer kusugayso fool ma fududo waa adigoo intaasoo kilomitr carartaa lagu leeyahay markaa foolinaysid marka nasiina u baahan tahay iyo cunno fiican inaa cuntid insha allah oo energy ku siinaayo taas waaye waxaa kaloo jirto oo lagu ogaadaa foosha beenta xanuunka markuu saas kuu haayo adoo iska fadhiya haddaa istaagtid oo socsocotid guriga dhexdiisa wuu ku daynaa xanuunka laakiin xanuun fool kuma daynaayo xanuunka foosha habartaa kataa ma ku daynaayo saasoo ku haynaa maanta socsoco jiifo seexo saasaa lagu haayaa laakiin kan beenta haddii waxaa caloosha laga qabto xanuunkaas ku qabto waa istaagay waa soconaya jikada tagay biyaa soo qaadanaya tagay bis waa iska baxaa saas markaa usoo fariisto dan soo naqaa kaas fool run ma ahan waa kii beenta ahaa waay markii ku murjin waxaa kaloo jira oo lagu gartaa xanuunada beenta oo xanuunkaas oo foosha waxaa lagu gartaa sidaan hore u sheegay dhiigna ma imaado caadadana ma imaado biyahana ma dilaacaan oo hooyada biyaha kama dilaaco marka insha allah waxaan jeclaa lahay abaayo kasto markay foosha haysto inay calaamadahan fiiriso calaamadaha haddii si gabadh biyo ka dilaacin haddaysan dhiig imaanin haddaysan xanuunkii isku dhadhaweyn 10 daqiiqa mar la qabanaynin waa iska normal waa kii beenta waa naso gurigaaga fadhiiso waxaa cabi kartid waxaa cuni karta cun haddaan nasada seexa karta isku day inaad seexatid xanuunka duukaa maqay iska seexo hurdo badanaa u baahanta waxaa laga yaabaa inaad dhafarto markaa foolinaysid mararka qaar waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaar 2 maalin 2 habeen iska foolana ilaahay markaas intii muslim ha u fududeey iyo hooyo kasta ha u fududeey laakiin iska naso markaana satidna waxaa laga yaabaa habeenka u horey cunugii isku cusub tihiinoo cunugii ooynaayo saacad kadib soo kacayo hurdo ma jirto marka intaa seexa karta iska seexo iska naso haddaa gurigaaga waxaa samayn kartaa cuntaa la karsadaa badanaa hadduusan xanuunku haynin cuntaa la karsadaa meeshaan meelaha filinjeerka la gashtaa geedo waxaa jira oo isku dabool ah waxaa jira lasoo gato marka geedahaasaa soo gadanaysaa cuntada dhanaa karsanaysaa intii fooshaada la gaarin waa ku shubanaysaa weelkii isku daboolka cuntooyinka jeceshaa ku shubanaysaa haddaa rooti badanaa samaysanaysaa filinjeerka lagu aruuriyaa filinjeerka lagu aruursadaa cuntada maalmaha u dambe oo fooshan beenta kusoo qabato foosha beenta fooshii horaa fooshii runtaa kusoo xigta markasta gabdho ama maalmaha kugu qaadato barta bil maba qaadato laakiin badanaha maalmay qaadata amba 2 isbuuc u badato amba isbuuc haddii kugu qaada istahdo fooshan tii oo hadda kasoo sheekeynayo waayo saacad u dhaxaysayo haddaa istaagto ku daynaysayo waxyaabas isku arkaysa waa fooshii beenta marka waxaa sameynaya tii runtaa kusoo xigtee nasiinada badso halkoo maalin waxaa samayn kartaa macno male cunto badan karso hadduu qofku caawinayo maakaas haddii kaleeto adaa samaysan karabo bariisa digsi weyn ku kariso iyo hilib ama dooro ah hoos gelisay howl hooysaas u weyn ma aha burna rootina waa samaysan kartaa waxyaabahaas buskudaa la dubtaa waxyaabahaasna la samaystaa baayo wixii samayso meel ku aruurso filinjeer ku aruurso wixii dhar ku yaala wasaq iska dhaq gurigoo diyaar foosh diyaara u tahay marka haddii markaas dharka iska dhaqdo oo filinjeerka cunto kugu buuxdo oo foosh xataa imaabaysa macno male adu diyaara tahay waa iska sii nasanaysaa nasiinada qaadanaysaa haddaa kutub inaa akhristo kutubkaaga qur-aanka akhrisanaya ama buuga iska akhrisanaya ama socooda aadaysaa waxa aad jeceshahay aad samaysanay niida laakiin ha ku hayn haddaa maanta foosha niida ku haysid waxa waaye waqtigiina ma yooma soconaayo adigiina stressa kusii qaadaysaa stresskan ilmaha ma fiicno stresska ilmaha ma fiicno marka caloosh ku jiro ma fiicno marka stress marka ilaahay waxaa idinkaaga tuugayaa hooyo kasta oo fool ama foolanays ama xaamil inuu kala keeno insha Allah ducooyin waxaa jira la akhristo ducooyinkaasna waa idiin soo diri doonaa waxyaabo badan waxaa jira foosha soo dedejiyo inkastoo cunuga waqtiga ilaahay u qoro oo adduunka imaanayo haddana waxaa jira waxyaabo la sheego inay foosha soo dedejiso oo markii la cuno foosha xilib ku xigta imaanayso insha Allah taasna idiin soo sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraaho wixii kale aad jeceshiina ka soo hadlane commentiga igu soo reeba walaalahayga qaaliga ah aad iyo aad u mahadsantihiin sida igu xiran tihiin oo channelkayga subscribe-ka igu saarteen ay soo dhaweyseen ilaahay ha idin shafro had idin soo dhaweeyo insha Allah video share gareey abaya ka faa'iideysan doonto insha Allah
وما سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.